السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان وقلب ميري HD waxaad kala socon doontaa qisad xanaan oo la magac baxday hanfi jacayl. waxaan idin soo tabin doonaa anigoo ah Axmed Saxardiid Xasan oo ku magac dheer Muuse Biixi. Balayax waa wiil la jecel yahay oo ay dhaarta ugu dambaysa ku maraan dhammaan hablaha la dhashay, waana ninka kadinka geelooda ah ee reerkooda u go'ay oo kaymiya goobta aqlaba daajiya. habeenada ka mida ayaa Balayax iyo aabihii goodaad wada sheekaysteen. Balayax aabihii muusan sheegin wax guura, kumana uusan soo hadal qaadin, waayo wiilku waa Balayaxe. wuxuu arrimaha guurkiisa soo hadal qaadkooda markasta ka sugaa aabihii, waayo waayadii hore go'aanka ugu dambeeya inanka guurkiisa iyo inanta guurkeeda waxay ka go'i jirtay reerka, iyadoo ay weliba jirto gabadh caash ku dhaawacday Balayax xusuusteedana uu ka ladi waayey. waa gabadh la dhaho Cudbi oo ay dayrtii hore mar ay kulmeen ku ballameen guur. markuu hore dhibaca guga ugu soo horeeya, xilligii ballanta oo la soo dhaafay ayuu wiilku aad ula murugooday, waxaanuu sawirtay Cudbi oo inta ay u qaadatay inuu ilaaway rag kale sidaa kula baxday. habeen barhkii markii ay hurdadu ahayd ayaa wiilkii Balayax waxa uu iman weyday hurdo. aabihii goodaadna mar horeu dhinaca dhulka dhigay. xilli dambe goor ahayd ayuu goodaad soo toosay. waa wiilkii Balayax oo dhulka xariiqaya. wuxuu ku yidhi, aabe maxaa ku helay oo aad la seexan weyday? Balayax dhaqso ugu muusan jawaabin aabihii oo cabbaar ayuu ka aamusay. waxaana qalbigiisa ku soo dhacay tuducyo gabay ah. waxaanu doonay inuu aabihii ugu jawaabo gabaygan: waxaan aabe tabayaa oo hurdadayga taloo siiyey, waa taageerkii teedka iyo tima ka muuqdaane, tu yaroo halkaad joogtaan taabis leeyahay. jeeroon tarkaafaha ku tago teedka qudhaca weyn, tima dheerta aan rabo anoon tuuyo kula loolin, hurda iima taale maxaa adii ku soo tooshay? odaygii baa isna sidan ugu celiyey, haddii Balayaxow tima yar iyo teedku kuu meero, wiil yahow haddaad tallaadood gabadh ku taamayso, inaan aabe taban taabiyaa waatu waajibee. gaafkaada inaan tiiriyoon tiirsho garabkaaga, taa kule inaad iga heshaa waatu aan rabaye. aabe anigu waan kula tabciyey qaada taladayda. taxaashkiyo haddaad tamashlo guur teedka sare gaadho, dumar kala tagane Balayaxow iga tilmaam qaado. kol hadday tallaabada sidii tukule luudayso, tartarada haddii muujisoy toban dhex qaadayso, tamar ma laha oo waa mijacas aad u taag darane. aabbow ha tooyanine haddaad talay weydiisay. markii ay goodaad iyo wiilkiisii Balayax tixaha gabayga isdhaafsadeen ayay meesha timi arrintii odayga laga sugayey. kadib markii cabbaar laysla gorfeeyaba waxay isla garteen inuu Balayax guursado. dabadeedna odaygii baa yidhi, aabe shaydaan baa degdegee, waxaad yeelaysaa subaxa aroorta laga bilaabo hawsha guurkeeda, kabaha u xidho, salaadka horena ka lah, reerkii iyo hooyadaana sii mar, awrka rariga ahna gado oo waxna magaalada kaga soo muraadso, waxna jecsiin siiso.
balayax inkastoo aanu kaarka howlyaridu sidaa kaga ba'ayn ayaa isaga oo hurdadu u yara dhadhamayso xoogaa seexday. kadib subaxdaasi intuu sibraar caana ka buuxsaday ayuu sii kalahay. subaxdaasi wuxuu sii socdaba markuu jiidii reerahoodii degnaayeen xaggaa soo saaray ayuu yara nastay. waxaanu bilaabay dhegaysiga shanqadh, bal inuu maqlo reeraha shanqadooda. waxaanu maqlay luuq gabdheed oo uusan dhowaanahan maqal. dhawaaqaasuu dhegaysanaya waa gabadh ku geeraaraysa baranbarshaaleeye buula sharare ma maantaan bah kuu helay geedba geedka u dheer laga garaaciyey galool muray mulaaxiye. balayax wuxuu maqlay cod aad u cajabiyey. waxaanu gartay gabadhaasi inay tahay walaashii baloolay cod dheer ah. in yar kadib wuxuu soo gaadhay reerkii. kadib aqaladii ma uusan gelinin, wuxuu ku leexday geed damal ah oo reerka korkiisa ah. geedkaasi waxaa hoos fadhiyey koox dumaraha, waxaana iyaga oo iyagoo ku dareeray kabad qayb ahayd oo markaa farta lagu hayay. kabaddaasi waxaa u nugtay gabadh walaashii ah, waxaana igu tala gashay wiilka balayax aqalkiisa ma dhow la yagleeli doono. dabadeed balayax salaan gacmo taabasho ah iyo bariido gacantooya rag iyo dumar, caruur iyo ciroole wixii reerka joogay. habeenkii dambe goor cawaysa ayuu balayax hooyadii ku wargeliyey inuu aabbihii goodaad kula teliyey inuu soo guursado gabadhu doono. hooyadiina arrinkaas aad bay ugu riyaaqday, waynay soo dhoweysay. kadib balayax iyo hooyadii waxay galeen falanqaynta reerkii loogu hagaagi lahaa iyo inanta ee tuhmayaa midda ay tahay. hase yeeshee balayax gabadhii cud bay ahayd ee ay ballamayn mooyaane niyaddiisa kuma jirto gabadh kale oo la raadiyaa. gabadhaasna wuu ka qarinayaa reerka sababtoo ah labada reer ayaa col ahaa muddo dheer. haddii gabadhaasi reerkooda laga maqlo balayaxna xaalkiisa ilaahay unbaa garanayaa. balayax hooyadiibaa intay soo garab fadhiisatay oo ay garabka gacanteeda ka saartay ayay iyadoo yool baadhaysay waxay hadal kaftana ku tidhi, hooyo, horta miyaanan hablaha la haasaawin? weligaa gabadhna afka mau kala qaaday oo ma la haasawday? ta kale gabayada iyo mahmaahyada sidee baad isku tihiin? ilayn ninka amuumyaha ah ama ninka aamusan haweenku uma soo joogsadaan, oo waa tii hore loo yidhi nimaan hadlin habartiina waxba ma siiso. kadibna balayax intuu dhoola cadeeyey ayuu yidhi, hooyo, gabdhaha iminka jooga ma maamahaiyo gabay inay u baahan yihiin baad u malaynaysaa? waa loo gacan hadiyaa, way ku soo raacayaan. markaasay hooyadii intay afka gacanta saartay ayay tidhi, war ha ii keenin kuwa gacan hadiska ku imanaya, soo hadhowna gacan hadis kale ku dhaqaaqi mayso. hablo badan oo dhisan karaya oo dhaqan karaya ayaa dhulka buuxay miyaanan arag? hablaha gashaantimaha ah ee reerkeena agteena degaa